Udabaaldegidda camalkii xumaa. Udabaaldegidda xumaanta waxay ka mid tahay waxyaabaha aad u soo badanaya zamankan aynu noolnahay. Sidoo kale udabaaldegidda xumaanta dadka badankood umaba arkaa inay tahay arrin aad u xun oo Alle uga caroonaya. Udabaaldegidda xumaanta waa dhaqan nooga yimid dhanka reer galbeedka, si dadka badankooda waxay u arkaan inuu yahay dhaqan aanan xumayn oo aad u farxad badan. In badan dhalinteenu waxaynu arkaynaa ayagoo u dabaaldegaya tiro followers ay gaareen, waxayna intaasi followers ay ku kasbadeen heeso ay iska soo duubeen. Heesuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga qofka bini'aadamka madoobeeya, waayo qalbiga qofka bini'aadamka waa sida warqad cad oo kale. Mar walba aad xumaan samaysid waxaa ku dhacaya qalbigaaga dhibic yar oo madow. Waxyaabahaas aad iska soo duubaysid ma ahan wax anfacaya adduunkaada iyo aakhiradaada toona. Waxaad juhdi iyo dadaal aad ku bixinaysaa in maalin walba aad muuqaal cusub soo dhigto si aad dadka kugu xiran u farxad geliso. Dadaalka aad gelinaysid in hees walba cusub aad iska soo duubto kadibna aad soo dhigto ciwaanadaada social mediaha ma ahan dadaal aad hal ajir xitaa aad ka helaysid khasaare iyo dembi mooye. Dadka kuu sacabtumaya oo kugu dhiirigelinayaan inaad hawshan sii wado ma ahan dad adiga ku jecel, se waa dad kuu sii wada wadada jaxiimo. Mar walba waxaad ku faanaysaa inaad leedahay asxaab fiican, se laakiin ma aha asxaab fiican marba hadday xumaanta kugu dhiirigelinayaan. Qof walba oo ku dhahaya keep going, ogow inuusan ka badbaadin karin maalinka qiyaama cadaabka Alle subxaanahu wa tacaala. Ogow qabriga inuusan kugu wehlinaynin, ogow inuusan Alle kaaga noqon karin ergo, ogow inuusan jannada ku gelin karin. Waxaad ogaataa halka views ee ku daawada waxay u dhigantaa hal dembi, 100 viewsna ee ku daawadana waxay u dhigantaa 100 dembi. Alle xagiisa wax ku anfacaya midaad dhigatay oo bari aad ku badbaadi karto mise wax khasaare ku ah. Bal waxaad ii sheegtaa walaalkayga ama walaashaydii, ma wax faa'iido u leh adduunkaaga iyo aakhiradaada miyaad ku dadaashay mise wax khasaare u ah labadaada daarood? Walaalkayga ama walaashayda waxaan talo kuu siinayaa intaad ku dadaali lahayd oo aad u dabaaldegi lahayd camal aanan Alle raali ka ahayn, ku dadaal inaad ku dadaasho oo aad u dabaaldegto camal kaasoo Alle kaaga raali noqonaya. Waa walaalkiina Daxkiin Axmed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.